لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. waxaan ka warbixinaynaa howlgalladii ugu dambeeyay ee ka kala dhacay gobolada Shabeellada Dhexe, Galgaduud iyo Koonfurta gobolka Mudug ee Soomaaliya. asbuucii ugu dambeeyay howlgal si wada jir ah ay u fuliyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo bilowday 1 bishii 10aad 2024 ayaa si fiican uga sii socda gobolada Shabeellada Dhexe, Galgaduud iyo gobolka Koonfurta Mudug. Shabeellada Dhexe haddaan ku hormaro gobolka Shabeellada Dhexe ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya dadka deegaanka iyo saaxiibada caalamiga ayaa si wada jir ah u nadiifiyay difaacyo badan oo khawaarijta ay ku sugnaayeen sida Jameeca, Masri iyo dhul beereedka gobolka Shabeellada Dhexe. inta lagu guda jiray howlgalka ciidanka geesiyaasha ayaa sameeyay iska caabin iyo ka hortagayaan maafiyada khawaarijta al-Habaab, weeraro iyo qaraxyo miinooyin ah ay ugu tala galeen khawaarijta inay ku naafeeyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidanka ayaa ka hortagay kuna fashilay halkaas. guulaha laga gaaray asbuucii ugu dambeeyay howlgallada la sameeyay waxa kamid ah in lagu dilay dhagarqabayaal ka tirsan khawaarijta al-Habaab oo gaaray 45 khawaarij ah intuu socday howlgalka Shabeellada Dhexe. dhanka Galgaduud howlgal si wada jir ah ay u fuliyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka oo bilowday sida hore u sheegnay 1 bishii 10aad 2024 ayaa ayadana si fiican uga socda dhinaca gobolka Galgaduud ee Soomaaliya. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa cadowga ka nadiifiyay deegaano badan sida deegaanka Faadamo Guuleed, Quraactir, Jilib, Qoodhiley iyo Haanta Dheer. jab xoogan ayaa khawaarijta lagu gaarsiiyay halkaas, ugu yaraana waxa looga dilay 50 dhagarqabe waxaana looga dhaawacay 70 kale. sidaas oo kale waxaana laga nadiifiyay deegaano tiro badan. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamiga iskaashanaya waxay duqeeyeen inta u dhaxaysa Geerile iyo Waniile. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaasatan ciidanka Kumaandoosta Gorgor iyo Kumaandoosta Danab ayaa howlgallo nadiifin ah ka wada Koonfurta Mudug ayagoo kaashanaya dadka deegaanka. halkaasna waxay ka sifeeyeen maafiyada khawaarijta al-Habaab bartilmaameed ay ku lahaayeen ama bartilmaameed difaaciyad ay ku lahaayeen Qaycad, Shabeelow iyo Camaara iyo Bacadweyne. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya dadka deegaanka halkaas waxay ka sifeeyeen khawaarijtii ku dhuumaalaysanaysa halkaas. labadii maalmood ugu dambeysay howlgal si wada jir ah ay u fulinayeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed difaacyada khawaarijta al-Habaab ay ku lahaayeen Qaycad ayay ku burburiyeen gaari saarnaa maleeshiyaad. sidaas oo kalena waxay ku gaarsiiyeen jab xoog leh. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya dadka deegaanka iyo saaxiibada caalamiga ah maalmihii ugu dambeeyay guulo waaweyn ayay dalkan u soo hooyeen. waxaan leenahay guuleysta waxaad fulinaysaan awaamiirta nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yiri la in atraktuhum la aqtulannahum qatla caad wa thamud. haddaan haleeli lahay sidii reer caad iyo reer thamud loo laayay ayaan u layn lahay. waxaad haysataan wuxuu nabiga tamanay calayhi salaatu wasalaam kiina shahiidana waa ahlu janno, kiina nool oo wax guuleystana asagana waa ahlu janno. sababtoo nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa yiri duuba liman qatala wa muqataluhu laanta janno waxay u sugnaatay qofkii dila ama dilaan. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo mar walbaba garab iyo gaashaan ka helay dadka deegaanka iyo shacabka Soomaaliyeed ayaa sifeen iyo dhabar jibin ku wada khawaarijta al-Habaab. waxaan leenahay khawaarijta maafiyada al-Habaab intay goor tahay aysan gacanta ciidanka idin soo gaarin. waxaad ka faa'iideystaan baaqi madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. waxaad ka faa'iideysataan xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ahaa at-taa'ibu min adh-dhanbi kama laa dhanba lahu. qofkii toobad keen wuxuu la mid yahay asagoo dambaabin. intay goor tahay oo aysan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gacmahooda aan kula ciqaabin waxaad la midoodaan shacabkiina Soomaaliyeed waxaana dhibka ka dhaaftaan shacabka Soomaaliyeed dhibaateynaysan. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed xubin kamid inta uu nool yahay wuxuu diyaar u yahay la dagaalanka maafiyada khawaarijta al-Habaab. wabillahi tawfiiq.